Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta channelkan ku xiran. Maanta waxaan idin hayaa asxaabey, weligaa waxaad maqli jirtay lacag ayaa dibad ama qurbaha laga soo diri jiray ama laga soo diraa. Laakiin ma kula tahay lacag Soomaaliya laga diray oo loo diray qurbaha inuu qof mas'uul ah xildhibaannimadiisii ku waayay, weliba xisbi talada haya looga bixiyay? Haddaba daawade, nala joog intaan videogan dhamaynayno. Subscribe-ta waa codsi, like-ta waa dhiirigelin, u share garee asxaabta si uu u gaaro wararka aan ka tabino channelkan Fadhi Wanaag channel. Waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. Gabarta Soomaaliyeed oo musharaxnimadeedii xildhibaan ku weyday wasiir ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo lacag u soo diray. Gabadhan oo magaceedu yahay Sahra Axmed Mustafe oo xubin ka ahayd xisbiga talada haya ee dalka Australia, ayaa gebi ahaan laga noqday musharaxnimadeedii kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafadda ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ee dalka Australia. Sahra Axmed ayaa mar laga wareystay sida ay wax u jiraan ayaa sheegtay in xubinnimadeedii xisbiga iyo musharaxnimadeedii ay ku weyday lacag uu u soo diray adeerkeeda oo wasiir ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharci darro ku tilmaamtay arrinta loo cuskaday xilka xayuubinteeda, waxayna sheegtay in lacagta ka soo gaartay adeerkeeda wasiirka ah ay ahayd hadiyad uu u soo diray ciyaalkeeda, aysan jirin wax lacag ah oo ay u soo direen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa kaloo tilmaamtay waxa dhacay in ay yihiin wax qalad ah. Daawade, haddaba adigu Sahra maxaad kula talin lahayd?